السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبرنامج كان حكمتها يسكسو الله بشوعا waxaan si gaar ugu mahad celinayaa qof kasta oo ku xidhan dirilkan. Waxa kale oo aan ka afiifanayaa xikmadaan soo gudbiyaa si u dhanyihiin waxigasho sida daraadii si u qoran yihiin ayaan soo gudbiyaa haddii aad fahmi weydeen wadna ka raali ahaan doonta. Xikmad walba waa hadal, balse hadal walba xikmad ma ahay. Doqonka ayaa barta, hadalkana isaga ayaa isbarta. laguma duuleysan doono haddii aanad cidna waxba ka rajaynin. Rajadu waa sidii cusbada oo kale, kuma baahi tiri karto, balse waxay ku macaanaynaysaa cuntada. Waxa uu yidhi Jos Saramoga, noqo sida dayaxa, dadka ayaa madaxooga kor u soo qaadi doona si ay ku arkaan. Ha noqon sida qiiqa oo isagu kor isku qaado si loo arko. in xorriyad hadal la siiyo qof jaahil ah waxay la mid tahay qof waalan oo qori loo dhiibay. waxaad ahaanaysaa mid cafiyo qof walba oo jecel yahay ilaa aad ka nacdid qofka. injineernimada ugu quruxda badan waa in la dhiso buundooyin raja ah fartamaha webi quus ah. noloshu waa sidii iskuul, waad isqori kartaa, balse inaad wax ka baratid waxay ku xidhan tahay dadnimadaada iyo shakhsiyadaada. waddanka waxaa leh taajiriinta, mudaniyadana waxaa leh fuqarada. xanuunadu waxay kaa dhigayaan qof adag, qaladaadkuna waxay kaa dhigayaan caqli. mar kastood qaldanto qiro, mar kastood saxan tahayna aamus. ha u bedelin dabcigaaga inaad dadka kale ku raaligelisid, codkaagana inaad ku cajabgelisid cid kale. u noolow sidaad raalliga ku tahay ay Rabbi weyne ku abuuray. qofkii raba in kuu soo dhowaado wuu ku soo raadinayaa, qofkii aragtidaada rabaa wuu ku aaminayaa, kii codkaaga u xiisayna wuu ku soo wacayaa. intuba ma ahayn waxay duruuftu diiday, balse waa wax ay nafsadu diiday. haw qof adag, maxaa yeelay qistadaadu weli ma dhammaanin. iska soo afjar xiriir walba oo aanad ku dareemaynin farxad iyo deganaansho, maxaa yeelay noloshu ma ximbaari karto sugitaan fara badan. malaxumadu waa cudur dilaa wax walba oo qurxoon. qiimo ma lahayn sida ay dadku ku arkaan inta ay ficiladaadu ku siinayaan damiir toosan. dhibicda roobku waxa ay toobasho leedahay intaanay dhulka gaadhin. qofka daacadda ahna waa sidaas koo kale, oo haddii aan la daryeelin inta uu nugul yahay waxaa adag si loo tabiibo marka uu bukodo. intaas ayaanu ku soo koobaynaa barnaamijkeenna sharaf iyo karaamo Rabbi korkiina ahaato. nabad iyo nooli kulante.